C'est bon? OK. alaabta way fiican tahay waan bilowanahay Toosoo isku tiirsada qalbigiina taagdarane taageero weligiina toosoo isku tiirsada qalbigiina taagdar
Soomaaliya toos waa heestii qaranka ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. waa heestii la sameeyey markii ummadda Soomaaliyeed ay xoroobeysay shanta Soomaaliyeed la mideynayay. waa hees aad u wanaagsan, waa dhaqan, waa nashiidad, waa qurux badan tahay insha allahu tacaala. iminkana waxaan dhageysanaynaa intii Jabuuti insha allah. Hayba Hayba sama Tayo Haybat Kuyal Haybat Kuyal Haybat Kuyal Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ayuha al-ahibba walaalayaal, assalaamu calaykum waraxmatullah. waxa aan ku faraxsanahay marka aan insha allahu tacaala ka hadlayno dalkeena iyo dadkeena. wadan walba wuxuu leeyahay wax u ah tilmaam. Soomaaliya calanka buluuga ah ee cirka u eg ee xidigta cadi dhex taalo ayaa u ah wax lagu garto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Jamhuuriyadda Jabuuti calankeegaas iyaduna maaragtay samada u eg ee dhulka u eg ee cadanka halka dambana dhex taalo xidigta dhiigga casa ba u ah wax lagu garto wadankan. wax aad kaga duwan tahay waa identigaaga weeyaan, waa ahaantaada weeyaan. marka ismacnee haddii lagu yidhaahdo calanku waa maro, laakiin maradu waxay sambool u tahay taariikh, bay sambool u tahay. heesta amba nashiidada ku dhex jirta calankana waxay matalaysaa taariikhdii ummadan ay lahayd. marka halgankan wuxuu ku xasuusinayaa Sheekh Bashiir oo kasoo dagaalamay Soomaaliya. wuxuu ku xasuusinayaa Maxamed Cabdillaah oo sayidkii Maxamed Cabdillaah Xasan. wuxuu ku xasuusinayaa Xawataako. wuxuu ku xasuusinayaa dadkii soo galay halgankii mideynta. wuxuu ku xasuusinayaa Jabuuti markaad joogtid marxuumkii Xarbi, ilaahay u naxariisto, ee dhoofay ee soo noqon, ee calanka u dhoofay, ee u halgamayey. wuxuu ku xasuusinayaa marxuumkii Axmed Diini, ilaahay u naxariisto, ee calanka u soo halgamay. wuxuu ku xasuusinayaa maaragtay Xasan Guuleed. wuxuu ku xasuusinayaa Aadan Rooble. wuxuu ku xasuusinayaa maxaan ku dhahdaa ninkii gobonimo doonka ahaa
gabdhihiisa iyo faamiligiisuna ay qaarkood Canada joogaan ee sameeyey maxaan ku idhaahdaa in samboolka Jabuuti lagu garto wuxuu ku xasuusinayaa maaragtay rag aad u fara badan oo taariikhda soo maray iyo haween aad u fara badan oo taariikhdeena soo galay istuwaarku ku xasuusinayaa marka wax caadi maaha dad fara badan baa ku mashquulay heesto ma xalaal baa ma xaraam baa heestan qaranka iyo isweydiinayaan qaar fara badan oo wadaado waxaan arkaa marka meelaha laga salaamay calanka aanu sara kicin calanka walma maraan u sara kacnaa yani dadka waxaa laga bedelay waxaa lagu sameeyey maanmeyd iyo maskax meyd baa lagu sameeyey marka ma jirto wadan carab oo laisku weydiiyey calanka baan u sara kacnaa mise ma sara kacno soomaalida uma ku dhex arkay madhab sacuudiga mar fidinayay ayaa inagu dhex fiday markaas baa dadka laga dhaadhiciyey calanku waa sanam looma sara kici karayo calanku sanam maaha calanku waa raayo waa ramzi sambool u yahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo sambool u yahay waxaweyaan uu matelayaa marka aad jimcida qurmaha tagtid 228 etaa 228 wadan ayaa jira adduunka 220 ka wadan nin walba wuxuu leeyahay calan ka duwan calanka kaleeto macnaha wadan walba waxaa matala maraa matasha maradaa waxaa ku dhex jira taariikhda waxaa ku dhex jirta halganka waxaa ku dhex jira rag iyo haweenka waxaa ku dhex jira wixii kiciyey ee motiveeyey ee yiri kaca ayaa ku dhex jira waa halgan ilaa maanta socda waa halgan Soomaaliya ka socda waa halgan Jabuuti ka socda waa halgan Ethiopia ka socda waa halgan ummaddu wali halgankii way ku jirtaa isma taagin maanta waxaan ka warrami doonaa caalamku halku u socdaa ayaan wax badan ka sheegi doonaa hadduu Ilaahay raado waxaan jecelahay walaalayaal waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood oo maaragtay ma sii sheegaysta awal maanta mar walba arrintan galayno iyada la socon doontiin insha Allah taala marka ugu horeysa waxaan jecelahay siyaasad baan ka hadlaynaa dad fara badan su'aal bay isweydiiyaan siyaasadda maxaa loo tarkiisiyaa waxa kaleeto dhan ee adduunka jira dhaqaalaha bulshada baayac mushtarka waa arrimo privé oo gaara weeyaan xataa diintu qofku isaga yaa ilaahay jannada ugu galaya cadaabtana ugu galaya laakiin waxa dadkoo dhan taabta waxa weeyaan waa siyaasadda weeyaan arrinta labaad siyaasaddu scientific ma cilmiyan waxay gashaa wax walbaba siyaasaddu dhaqaalahay gashaa siyaasaddu bulshaday gashaa siyaasaddu diintay gashaa siyaasaddu waxay gashaa maxaan ku dhahdaa warbaahinta siyaasaddu waxay gashaa tacliinta educationka siyaasad tacliimiya dhahdaa siyaasaddu caafimaadkay gashaa siyaasadda caafimaadkaa dhahdaa siyaasaddu waxay gashaa wax walba siyaasadda magaaladay gashaa siyaasadda ilaalinta miyiga siyaasadda beeraha siyaasaddu wax ay ka maqan tahay ma jirto iyadoo wanaagsanna waa la arkaa iyadoo xunna waa la arkaa dalalka ugu siyaasad degan ugu siyaasad fiican dadka degani way ugu fiican yihiin dhinaca raaxada nolosha matalan wadanada lambar 1 baxa siyaasadda waa Denmark waa Australia waa Iceland waa Norway waa Sweden waa Finland nolosha bini aadamkuna way fiican tahay waa Canada nolosha aadamuhuna way fiican tahay way degan tahay kaalmadada siyaasad mustaqil ah wadanada siyaasaddu ay wareersan tahay sida geeska Afrika Soomaaliya Jabuuti Yemen maxaan ku dhahdaa Libiya Pakistan Afghanistan wax badan dadka noloshooduna way kharaabsan tahay dadku meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan iyo waxay rabaan iyo waxa la rabo ma garanayaan okay siyaasaddu waxa weeyaan walaalayaal waa mawduucaas weeyaan Imam Ghazali sheekha la oran jiray rahimahullah qoray kitaabka uu bixiyay Ihya Ulumuddin wuxuu ka hadlay siyaasadda ugu fiican adduunka ayaa keena man huwa afdal siyaasi fi العالم wuxuu waa ambiyadu waa siyaasiyiin weeyaan siyaasadda iyo siyaasadda macnaheedu waa maxay waa dadka waa dhaqinta dadka oo la dhaqo weeyaan ولهذا ابو إلهي أنبيada wuxuu u diri jiray markay yar yihiin in ariga ilaaliyaan su'aashii nabiga la weydiiyay hal raacayta ghanaman ari iyo xoolo ma raacday nabigu muxuu ku jawaabay cali salaam ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam ma jira adduunka nabi ilaahay soo saaray ilaa xoolo lagu daray sababtu waa maxay
xoolaha ilaalintoodu siyaasad bay u baahan yihiin. Riba bukooni, wanbaa dhibaata ku dhici, lax bay mushkilad heli, way dhali, maaragtay waxay u baahan tahay ricaayo gaara, hab gaara, si maaragtay intii kalena adoo ilaalinaya waxaad ka dhabi waraabaha iyo maaragtay dacwada iyo yeyga iyaad ka dhabi ood ka celini, waxaad haddana dhan kale ka ilaalin, cawska u doodooni, biyaad maaragtay ay cabaan baad raadcayni oo daba guri, waxaad dhinaca kale ka eegi maaragtay xoolaha maaragtay waxay ku bukoodaan oo loo yaqaan maaragtay oo cashaabta amba cawska, qaar bay ku bukoodaan, waqti bay bukoodaan, ay jiroodaan, waad ilaalini, biyaha ay cabayaan waad dhowri, haddana markaad soo celinaysid dariiqaad soo marinaysid baad eegi nabadgelyadiisa, waxaad eegi dariiqa inay qodaxyo iyo alaab wax yaaliin, marka haddana xerada aad keentid waad tirini inay dhan yihiin, istastigii baad gali, mid kasta meeshuu fadhiyaad eegi, haddana waxaad ku xidhi oodii, kadibna waxaad ilaalini, meel baad u seexani, waad ishaad ku hayni, waxaas oo dhani waxa weeyaan waa ricaaya, waa ilaalin weeyaan. walidaalika bay cilaaqa ka dhaxaysaa ilaalinta xoolaha iyo ilaalinta biniaadanka. biniaadanku xoolo maaha, laakiin baahida ayaa isku mid ah marka, iyo waxaa lagaaga baahanya mas-uuliyadda, responsibilityga. walidaalika ilaah ku tababaray inay ariga raacaan. nabi muusena ari buu raacay, shucayb markuu u tagay calayhi salaam, baadiyaha u tagay, marka waxaas oo dhan macnay leedahay. walidaalika imaam Ghazali wuxuu yihi calayhi radi allahu canhu raximahullah, muhiim waxaa ah inaan garanno afdalu siyaasiyiin, waa saa u qorayo, siyaasiyiinta martabada ugu sareysa waa ambiyada iyo rususha. markaas kow way ka yihiin, waxaa ku xiga buuri madaxda, umarada, ragga dee barta cilmiga siyaasadda, waxaa ku xigay buuri culimada, waxaa ugu dambeeya buuri ducaadda. aabba maraatibu siyaasiyiin markuu qorayo saas ugu qoray ninka cajiibka ah imaam Ghazali raximahullah. doctor Axmed Arraysuni mufakirka la yidhaahdo, inta badan waxaan jecel lahay inaan aqoon-yahankana aan ku qancino fikirka siyaasiga islaamku uu qabo. waxaanan rabnaa inaan siyaasadana taxliilino, macnayno, meesha inaan iska hadalno oo iska soo fadhiisano, hadal jacayl maaha, waa inaan madaxeena wax ku soo kordhino. doctor Axmed Arraysuni waa aqoon-yahan caalim ah oo muslim, mid reer Jabuuti la soo hadlo inuu wax yaqaano aan filayo, wuxuu magacdana sheegtimaba garanaynaba. mushkilad weyn baa meesha ka jirta, waxa problemka ka jira waxa weeyaan dadka dhinacan ka qora wax amba Faransi ha bartaan amba Ingiriisi ha bartaan, problem wuxuu ka haystaa inay fahmaan fikirka islaamiga ee carabiga ku qoran. sidaa daraadeed waa ilaa yihiin, waa dad cawara. maxaa yeelay diintoodii iyo turaaskoogii iyo fikirkoogii baa ka maqan. kuwa kaleetee halkan wax ka qora carabiga ee laakiin aan aqoon nidaamka reer galbeedka, gaar ahaan maaragtay waxa ay qoraan mufakiriinta waaweyn ee Harvard wax ku qoraa, amba Faransiiska amba Ingiriiska aan akhrin, amba isagoo afkii ku qoran Faranjiga amba Ingiriiska ku qoran, amba aan turjuman, iyagana problem baa haysto, iyaguna waa cawar, waa ilaa yihiin. mushkiladdu waa maxay? mushkiladdu waxa weeyaan midina wuxuu yaqaan diintii oo waxaa ka baqan cilmigii iyo sayniskii iyo fikirkii, midna fikirkii siyaasadii buu yaqaanaa, waxaa ka baqan diintii iyo aqoontii islaamiga ahayd. marka si loo helo miisaan waa inuu noqdo qofku qof qiraa'atu, siduu yidhaahdo mufakir weyn oo iminka dhintay oo Taha Jaabir al-Calwaan la oranayo, oo jaamacad Maraykankana ka dhigi jiray, Masarna ka dhigay, Ciraaqna ka dhigay, Sacuudigana ka dhigay, mar dhood geeriyoodo fuqahada waaweyna oo culimada aadka u culculusa, wuxuu yidhahdaa kelmad cajiiba, wuxuu yidhahdaa qiraa'ataani tatakaamalaani walaa tatacaaradaan. waxaa jira laba lagjar, laba legtiir, laba qiraa'o, laba akhris oo isbuuxisaa oon iska hor iman. qiraa'atu lwaxyi wa qiraa'atu lkown. qofku waa inuu akhriyo waxyiga ilaahay soo dejiyey, waa inuu akhriyana kownka, cilmiga bini aadanka waa inuu akhriyo. labadaasi way isbuuxiyaan, iskama hor yimaadaan. problemku muxuu noqday? kuwa kownka akhriya waxyi ma akhriyaan, kuwa waxyiga akhriyana kownka ma akhriyaan. huna almushkila. marka sidaa daraadeed markaan leenahay doctor Axmed Arraysuni wuxuu la mid yahay anoo ku dhahdo Jean Paul Sartre, ku dhahdo maaragtay Rousseau, ku dhahdo Montesquieu. qofka reer galbeedka markaa buu fahmaya Harvard ragga dhiga, haddaan kuu sheego sidii maaragtay ninkii maaragtay Huntington, haddaan maaragtay haddaan ku dhahdo, amba aan ku dhahdo Samuel Huntington, amba ninkii kaleete maaragtay Fukuyama, haddaan ku dhahdo dad baa hore u fahmaya, laakiin qaar badan oo dhanka kaleeta ma fahmayaan. waa ishkaaliye weeyaan.
dad badan labadaba ma fahmayaan iska nool hadana siyaasadda ka hadlaan qaar baa intay soo fadhiistaan xaggan wax sharxa wuxuu sharxayo reference ma leh marjic ma leh meel kuma celinayo meel kama dhaqaaqayo micyaar ma leh norma ma leh ijraa'aat procedure u raacaya ma jirto bas iska hadlayaa marka alxubu lilkalaam shahwa imaam Ghazali wuxuu yidhi qofku hadduu jeclaado inuu hadlo waa shahwad weeyaan waa qof cuntada jecel inuu aad u cuno waa gurma qof jecel inuu biyo cabo qof jecel inuu isbarun ciyaaro wax kala qaban qof jecel inuu hadlo waliba in la dhageysto doonaya si uu u biiriyo dadku inay dhageystaan muxuu sameeyaa dadku caaya waliba wuxuu caaya dadka magaca leh ee la yaqaan dadku jecel yihiin haybada leh iyad caaysa markaad ciimaysid waxaad helaysaa in lagu dhageysto ninkan muxuu sheegayaa bas waa viit laakiin waxba waxaan sheegay waxa ku dhex jiraan culays ma leh sadaraadii waxaan jeclaan lahaa maanta ninkan aan sheegay doctor Ahmed Ar-Raysuri waxa uu ku dhashay dalka Maroc waa professor jaamacadaha Maroc ka dhiga ilaa 150 maaragtay risaaladood text oo laga qoray master iyo doctorate ayuu saxay oo cilmiga fiqiga siyaasadda sharciga fikirka islaamiga cilmiga maqaasidda cilmiga qawaacidda fiqiga wuxuu ka shaqeeyay meel dhada maclamul qawaacid oo jiddo ku taala oo lagu ururiyo cilmiga loo yaqaano juridiga islaamka waxa dhan oo lagu ururiyo cilmiga fiqiga qaanuunka islaamka meesha lagu ururiyo ayuu oo jiddo laga furay yaa loo yeedhay markii doctor Jamal Atiya ninka loo jira u bukooday waa rahiib ninkani nin caadi ama wuxuu leeyahay wax ka badan 30 kitaab ayuu leeyahay doctor Ahmed Ar-Raysuni siyaasadda markuu ka hadlayay wuxuu dhageyso السياسة الحق سياسة الضبطة runta in xaq jirin siyaasadda laba jirta mid xaq jirta dhinaca midigta iyo mid dhinaca bidixda midigtu waxa weeyaan waa siyaasadka ay sameeyaan kuwa wadaadada indhaha sida shabaab sida maaragtay qoladii dawladda islaamiga ka sameysay meesha dhacdo Iraq iyo Shaam qaacida ku iloorinayay meelaha Afghanistan joogay wadaadada wareersan kuwa ay sameeyaan waa midigta fog bidixda fogna waa maxay waa kuwa cilmaaniyiinta ee diinta ka indhala ee haddana ummad ban hogaaminayna leh ee dadka ugu yeedhaya maa bacda al-insaan inuu insaanku dhamaado oo guurka fiican dhamaado oo qoysku dhamaado oo dadku ay noqdaan biro bila maaragtay bila dareena labadaas way u dhaxaysaa siyaasadda saxda ah wuxuu yidhi السياسة الحقة waxa weeyaan hiya siyaasadda maxay hiya u macnaya kullu tadbiir waa tadbiir waa qof fikiraya solution doonaya maaha qof barjaynaya oo wixii ku soo dhaca ummadda ku dhaqaajinaya maaha fahmi kartid marka qof halka marka hadlay waxaan u jeedo maaha qof hotel inta uu kiraysto 7 xidiga ku raaxaysanaya oo soo kacaya oo ummadda wax ku akhrinaya maaha waa tadbiir siyaasaddu waa maxay waa tadbiir kullu tadbiir ay dabbara tadbiirku waa maxay waa wax laga soo shaqeeyo waa strategical rag baa ka soo shaqeeyay kow وكل عمل وشقه سيصدق ما تيوريك وعمل وشقه قبنيه من شأنه marka maxay qabanaysaa siyaasaddu an yu'mina linnaasi dunyaahum wa aakhiratuhum dadka waxa loo securitynayaa loo amni gelinayaa adduunyadoodii iyo aakhiradoodii siyaasadda xaqi waa taa weeyaan qofka inaad u fikirtid aakhiradiisina inuuna waayin adduunkiisina inuu helo qaar baa idhaahda revolutionka dadka revolutionerada ah isbedelka doonaya ee adduunyo uu fikiraya maaha siyaasiyiin diinta ka horjeedaan maaha diinta kama horjeedaan diintu waxay u imatayba quraanka waxa ku qoran xadiiska ku qoran maqaasidda shanta ku qoran waxa islaamku ilaahay u soo diray waa diinta inta kale oo waa maxay waa adduunyo waa diin waa nafta waa maalka waa aqliga waa usradda iyo qoyska iyo cirdiga waa shan marka nafti waa maxay waa adduun maalku waa maxay waa adduun aqligu waa maxay waa adduun tawada ma maxay waa qoyskii la ilaaliyo hormar la gaarsiiyo waa adduun diintu ugu horeysa marka islaamka ilaahay wuxuu soo dajiyay inuu shanta shay ilaaliyo maqaasidu shariica marka shan loo qaybiyo afar ba ah adduunyo xabad diina marka maskaxiyan waxa uu ku leeyahay sheekhani siyaasadda xaqi waxa ilaalisaa dadka diintu adduunkooda iyo maxay iyo aakhiradooda dadku marka maxay noqdaan wayakunuuna macahu marka la ilaaliyo tadbiirka waxa leenayaa aksaru salaahan wanaagay u bataan wa abcadu fasaadan xumaantana way ka dheeraadaan okay dadkan waxa laga fikirayaa marka la rabo in wadankan la hagaajiyo Canada matala ka soo qaad fasaad baa jira siyaasi ah waxa la rabaa in fasaadka laga dheeraado wanaaga loo dhawaado
dhaqaalaha xumaaday waa laga dheeranaya wanaagga loo dhawaanaya waxaa laga cabsoonaya dadku inay ku biirto maaragtay lacagtu dowladdu ma joojin karayso inay biirto lacagtu waxaa la iibsanaya suuqa uu sara kacaya qasab dowladdu waxay ka fikiraysaa inay mishaarka biiriso leanna ma joojin karto waxan kale dhinaca kale kasoo daweynaysa xalkii waa inay isla socdaan dadka jeebkooga waxa kusoo dhacaya iyo waxa suuqa yaala sida afrika maaha inuu wixiina shallaamo matalan jabuuti oo kale dhaqaaluhu 9 goor 10 goor buu biiray marka laga soo bilaabo 9 ilaa maanta laakiin dadka mishaarkooga waxba kuma biirin idan taas markaa maxay keenaysaa dadku waxay u dhawaanayaan fasaadka rish way qaadanayaan gub bay qaadanayaan wadankay baabi'inayaan gaaja laakiin waa in la fikiro had iyo jeer sidii loo heli solution wuxuu yidhi wa aksaru cadlan wa aqalu dulman waa inaa lagu dadaalo in cadaaladda la ballaariyo dulmigana la yareeyo waa taa weeyaan siyaasaddu waxa weeyaan aksaru sacaadatan dadku inay dareemaan inay wadanka ku raaxaystaan wa aqalu shaqaawatan inay yaraato inta dareemaysa inayna stress yihiin cabsanayaan kelmaddaa buu yidhi aqoon-yahanka weyn ee doctor axmed hadiya siyaasa alxaqa siyaasaddu waa taas weeyaan siyaasadda runtii waa siyaasad 3 shay ka shaqaynaysa kow fasaadkay la dagaalamaysaa wanaag bay keenaysaa 2 cadaalad bay keenaysaa dulmigay la dagaalamaysaa 3 dadkay u raaxaynaysaa boneer 2 isla markaasina dadka waxay ka yeelanaysaa inay stress noqdaan ay murugoodaan oo ay qalaq iyo dhibaato ay dareemaan iyo kala dagaalamaysaa bismillaah raxmaan raxiim okay marka awsaa wadaadkaasi u macnaynayo ninka la yidhaahdo ibnu najiim oo ahaa caalim weyn oo u dhashay wadanka wadan mahna xanafi ahaa culimmadeennii hore xanafiyiinta ahaa oo kitaab weyn leh oo la dhahdo al-ashbaah wan-nadaa'ir fiqiga wuxuu yidhi siyaasadda markuu maclinayay waa shay uu samayso baawarku siyaasadda baawarkaa sameeya iyo kuwa baawarka soo horjeeda way wada sameynada laakiin maxaa loo sameeyaa antiri limaslaxatin yaraah maslaxad u arkaya ninka baawarka jooga inuu aayad qur'aan iyo xadiis badabaqin maslaxad ummaddu ay leedahay ayuu ka shaqaynayaa ninka siyaasigii marka walaalayaal arrimahaas waxaan uga jeeday albaab inaan ka galaan doonayo mowduuca aan maanta aan u socdo okay waxaa jira problem wadanadeena islaamka mushkiladda jirtay waxa weeye waa mushkilad 3 ah kow waxaa jira nin wadaada oo diinta aad ugu fiican laakiin siyaasadda aqoon waxaa jira nin siyaasiya oo diinta aanan ku fiicnayn iyo waxaa jira nin diini ah isla markaasina siyaasi ah saddexdaa waxa uu ku macneeyey wadaadka la yidhaahdo axmed araysuun iminka nii sheegay kelmad cajiiba oo uu ka soo qaatay cilmiga suufiyadda waxaa dhahdaa man tasawafa ninka suufi noqda walam yatafaqah diintana baran waaya cilmi yeelo waaya faqad tasandaqa wuxuu noqdaa mulxid iyo gaal suufiyaddu hadduu qofku faqiih noqon waayo khuraafaadka ku bata waa inaad cilmi yeelatid sidii imaam junayd uu yidhi suufi baa tahay maxaa ku ilaalinaya suufiyadaada naskii kitaabkii sunnihii okay waman tafaqaha ninka fiqiga barta walam yatasawaf ee qalbigiisa hagaajin waayana isaguna wuxuu noqonayaa nin dee maskax weyn shaytaan cilmi badan leh laakiin camal aan lahayn idan marka maxaa loo baahan yahay qofku inuu noqdo caalim zaahida ilaahay ku xiran oo rabbaaniya isagoo qaacida ka dhaqaaqaya wuxuu yidhi man tadayana qofka diin yeesha ee wadaad noqda walam yatasayas ee laakiin bolitiiga fahmi waaya faqad tarahbana tarahbanka waa maxay ruhbaan buu noqday meel buu isku xidhay kaniisad waa indhabeeshay acuudu billah maxaa dhacaya ilaahay baa waxaan qoray waa risiq ilaahay maxaa qof saa noqonaya waa kuwa qalad waman tasayasa ninka bolitiig gala walam yatadayana diin yeelan waayana faqad tacalmana laa'ig buu noqonaya laa'isitee ku leeyahay kala saar diinta iyo adduunyada caqliga maxay waqtigeed nooshahay saas ku leeyahay kitaabka ilaahay 140 suurada ayuu ku leeyahay kuma jirto siyaasadeed maxaa ku jira waxaa ku jira sida loo tukado sida loo darab yeesho sida quraanka loo akhriyo sida qof loo aaso sida qof loo dhiso waxaas baa ku jira no naga taa waxaan adaabtiisa ku xidhanaya maartay siyaasadda gornaya okay sheekh markaa muxuu yidhi waman tadayana watasayasa faqad tamakana man tadayana ninka diin yeesho watasayasa siyaasaddana fahma faqad tamakana adduunka u fahmay laguma waali karayo laguma wareerin karayo sida maqaamisigan maartay sacuudiga noqon maysid ee yiri maartay waan ogahay inuu maartay boqorka sacuudiga ka yar u dhalay
إنه إلهي كحرية يعني كنيسة بنوضي إنه قف إلهي كحرية إنه كحرين نبي إنه شيء عليه الصلاة والسلام نبي يقول لقينا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره لا بتيسي فعلت لا بتدر ما تيسي فعلت أيوة عن تكوفيقي حلو التقوى الله بتكون حجرتها وأشار صدح قورنا أوت المامي لا بتأيي أركب يكون حجرة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي أنبأ حقف قلب جيس كجرة إنه يهي منافق إنه يهي مؤمن إنه يهي قال إنه يهي دول كإسلام هوس كقال ما قرن كرنو كأوغو الصلاة بدن إنه أوغو قال سيهي أنا ما قرن كرنو كأوغو الصلاة ياري إنه أوغو إيمان بدن يهي أنا ما قرن كرنو كل ذلك في علم الله المحيط بكل شيء إله وحول بأوغ أنا أقول لكن ظاهر كان قاضينا أوكي أنت مركا أن كبحو وحانو إيمانينا موضوع أن أصعدو إن كهلو المشاكل كجرة مانتا صوماليا كو وتا صوماليا ولا ليال بروبليميدا هايستا dadkeenu wax badan bay ku macneeyaan qaar qabiil way ku macneeyaan qaarna waxay ku macneeyaan federalismiga qaarna waxay ku macneeyaan shabaab qaarna waxay ku macneeyaan tadakhulka faragelinta dibadeed ee Soomaaliya lagu hayo qaar waxay ku macneeyaan Ethiopia inay mushkilad ba tahay qaar waxay ku macneeyaan maaratay wadanada Carabta qaar waxay ku macneeyaan inay wali gaaladu u soo jeesan gaar ahaan Mareykanka iyo reer Yurub inay Soomaaliya solution laga helo problem Soomaaliya qaar waxay ku macneeyaan problemka Soomaaliya haysta dagaalka sokeeye maaratay aan macno lahayn qabiilka maaha dagaalka sokeeye xarbi ahliga aan macno lahayn dhamaad aan lahayn qaar waxay ku macneeyaan maxadada baa mushtarka oo aan rabin dowlad dhalato fiican لأنه waxay ku dhargeen dowlad la'aan bay ku dhargeen marka mar raba in dowlad imato qaar waxay ku macneeyaan maxaan ku yiraahdaa fikirka xumaaday ee Soomaalida maartay dowladnimada aan la faahfaahinin wax badan baa lagu macneeyaa laakiin anigu waxaan rabaa maanta inaan mushkiladda Soomaalida inii sheego inay afar meelood ka imanayso waxaan u bixiyay mushkiladda afaraysan okay mushkiladda Soomaalida horta waxaa jira wax raado wadan walba waxaa jira al-fikra al-markaziya wadan walba wuxuu leeyahay fikrad central ah oo laga dhaqaaqa marka la fikirayo qofku fikrad buu ka dhaqaaqa iska fikiro kadaarati in fikraya nin wadaado fikri hadaarati fikradda markaziga waa quraanka iyo sunnaha wax uu ka dhaqaaqaya wadaadada gudaha hadaa u yimaatid ninka salafiga markuu fikirayo aqeedadu ka dhaqaaqa ninka hadaa aragtid maxaan ku raahdaa tabliiqiga haduu fikirayo ruuxda iimaan in la yeesho Allah laga cabso adduunka iska tay waxa fikirka markaziga haddaad aragtid مثلا ninka maxaan ku dhahdaa qolooyinkani maaragtay rumaysan in islaamka la soo cisho oo lagu soo cisho xukunka ilaahay la soo cisho sida maaragtay jamaacadan as-saadicuuna bil haqq la dhahdo ay ka soo baxday oo weligeed ba jiray iyo qaar ikhwaana muslimiin kamida waxay ka dhaqaaqaan xaakimiyada in kitaabkii lagu soo celiyo adduunka al-xaakimiya wax dhahdo xukunka in ilaahay loo dhiibo okay qaar kale waxay ka dhaqaaqaan in siyaasaddu ay xumaato oo sida la hagaajiyo waxaas oo dhan wax weeyaan waa fikra markaziya ninka cilmaanigaana muxuu ka dhaqaaqaa uu leeyahay muslimiinta dhibaatada haysata wax weeyaan diintii iyo dowladdii baa isku laaqatay aan kala saarno diintana miskiidkan ku cilno dowladdan baarlamaanka geeyno haddaan sidaa ku guuleysano oo diintana ninka diin doonaya uu miskiidka tago ninka dowlad doonayana uu tago baarlamaanka waan kala habeynaa wixii okay marka fikra markaziyada wataa waa fikradda qofka uu ku duurayo ee noloshiisa oo dhan ba uu aaminsan yahay inay tahay halkii ummaduna fikrad markaziya leedahay مثلا ummadda islaamku markuu nabigu soo baxay fikradda markaziga wuxuu ka dhigay islaam Karl Marx communism shuuciyad buu ka dhigay marka fikrad markaziya jirta had iyo jeer laga dhaqaaqo maxay tahay dadka Soomaalida fikradooda markaziga saantarka u taala ee dhammaan qof kasta Soomaaliya markuu fikirayo madaxiisa ku soo dhacda meel kale ku kicin maayo waa qabiilka weyn waxaa jirta qabiilkuna laba u kala baxaa waxaa jirta wax laado القبيلة هي القبيلة قبيلة دوا محي قبيلة دوا ظاهرة وفينمن إلهي بأبوري waxay ka mid tahay systemka ummadda Soomaalida oo Ilaahay markuu ina abuuray bini aadamka inta badan waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila buu Ilaahay reero iyo qola inaga dhignay marka qabiilku waa daahiro Ilaahay abuuray oo koonka kamid ah qofkuna ma noolaan karo bila hadii daahira way jirtaa laakiin problemku waa maxay qofku inay qabyaaladu ka noqoto fikrad waa taa weeyaan imika nin Soomaaliya hadii la dowlad baa la sameeyaa Soomaaliya wuxuu ku leeyahay dowladda iyo madax ka noqday hebel baa ka noqday ha reer hebel baa noqday madaxiisa ku soo dhacay dowladda
waxaa madax ka noqday hebel. hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonaha isticmaalo, laakiin qofka Soomaaliga hebel egaal hebel yusaawi hebel wuxuu u dhigmaa reer. okay, dowladdii baa la qaybinayaa. dowladdii marka la qaybinayo waa cadka inoo qaybi, waa cad bay dowladdu arkeen. dowladda markii cadka loo qaybiyo waxaa loo qaybinayaa reerihii baa loo qaybinayaa. waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel, waxaa loo dhiibay reer hebel. waa fikra markaziya. ayaana waxaan dhegeysanaya dhalinyaro la baxday magaca maaragtay magaalo ku taala geeska Afrika. marka waxay ka sheekeynayaan reerka magaalada u badan. waxay leeyihiin reerkeenu marka uu wax qaybtamayo sidii dhaqankii cadka aan u qaybtanno waxaan la helay maaha cad, waxaan la helay waa dowlad, waa siyaasad weeyaan. waa dad doonaya dhakhtar in loo furo, iskuul in loo furo, in dadkan la habeeyo, la nidaamiyo. maaha qabiil cad, maaha la soo ritay, maaha wax la soo helay. sidaan u qaybtami jirnay aan u qaybtanna dowladda ma soconayso. fikra almarkaziya hadday qabiil tahay dowladii ma jirayso. fikra almarkaziya waa inay noqoto dowlad. fikra almarkaziya waa inay noqoto fikrad. fikrad waa inay noqoto, maaha dhiig. waa inay fikrad noqoto, maanka ka soo maaxaday oo ay aqoon-yahan soo saareen oo la yidhi fikradan baan Soomaali ka iibsami kartaa. fikradan ha ka iibina, laakiin dhiig aan hayn. dhiigu ma sameeyo dowlad. taa waa in la isgarano. ma jirto dowlad adduunka. waxaa jirta dowlado magac dhiig leh sida Sacuudi oo kale uu dhaqaaqi leeyahay. Israa'iil oo kale waa dowlad qabiila, way dhaqaaqi leedahay. Israa'iil dad badan horumar gaadhin, ma horumar gaadhin. Israa'iil waxay horumar ku gaadhay carabta ay la dagaalamayso iyo gargaar ay cadow ka helayso dad kale. laakiin dowlad wax weeyaan dhiig ku dhisan, maaha dowlad dimuqraadi ah, maaha dowlad samaysa carabtii dhulka lahayd asalka ahayd iyo ka yimid xataa ma samayso. dadka wadankii Koonfur Afrika oranayay dhiig buu ku yaalay, dhiig. dadka cad baa ka sareeyay dadka madow. markuu yimiday Nelson Mandela uu ka tanaasulay madowgu waa inay cadaanka laayaan. wuxuu keenay fikrad ah waa inaan ka tanaasulno dhiigga. maxaan qaadanaynaa? han wada noolaano, tacaayush silmi, dadku inay wada noolaadaan. hadii الفكرة المركزية. marka Soomaaliya problemka haysta magaca doon oo bixi federalismigu waa qabiil, dowlad goboleedku waa qabiil, maxaan ku raahdaa dowladaha hoosoostu waa qabiil, wax wal oo la qabanayo wasiiraduhu waa qabiil, shirkaduhu waa qabiil. wax aan qabiil ahayn ma jiro. xataa diintii baa qabiil noqotay. culimada dad baa arkaysaa sheekhan baan jecel, maxaa jeceshahay? waa tolkay. haye hadduu fiican yahay waa tolkay. fanaanadan waan jecelahay, maxaa yeelay waa tolkay. diin musiiga uu naca, laakiin fanaanada u difaaca ama fanaanka u difaaca. idan waa fikra almarkaziya. maxay noqotay? Soomaali maxaa haysata? waa qabiil. ta koowaad markaa waa taa. Soomaaliya haddii lagu weydiiyo maxaa mushkilada, waxaad leedahay mushkilada Soomaalidu waxaa ka luntay busolkii. maxaa ka lumiyey? waxaa ka lumiyey fikradda ay aaminsan yihiin ee centralka oo u baahan in la bedelo. see loo bedeli waa soo soconaa. maxaa imika yaala marka? waxaa yaala waa qabiil. waa koow. labo, Soomaaliya problemka yaala waa tarkiibi. waa talabaad التركيب baa dhada. Soomaaliya problemka yaala maaha qabsiyeeti, maaha waxaan sheegayna, maaha xabxabada. ma oran karno Soomaaliya qabiil baa yaala problemku. ma oran karno Ethiopia Soomaaliya faraha ku haysa. ma oran karno Soomaaliya dagaal baa ka socayso kale. ma oran karno Soomaaliya fargelin baa dibadda laga hayaa. may Soomaaliya mushkilada haystay waa mushkilad isdultaal, waa compliqué, complex weeyaan, waa mucaqad, waa murakkab, waa isdultaal taala. murakkabkaas see isku dultaalaa? waxaa isku dultaalaa Soomaaliya waxaa haysta mashaakil saddexaysan marka tarkiibka la dhex tago, oo mid uu yahay iyada, mid uu yahay fargelin dibadeed, midda saddexaadina uu yahay fahmi la'aan sida waxan loo gestiyo loo wado. waxaasoo isku biiray ayaa Soomaaliya problem ku haysta. Soomaaliya waa run fargelin xoog la lagu hayaa. fargelinta waxaa keenaya 4 arrimood. Soomaaliya in la fargeliyo 4 arrimood baa keenaysa. arrinta koobaad ee keenaysa wax weeyaan Soomaaliya waxaa ka buuxa maaragtay barwaaqo aan qayr caadi ah oo adduunku og yahay. marka Soomaaliya xataa aan dhaafo dhulka Soomaalidu ay leedahay waa wax weyn wax yaala Soomaaliya. waxaas maxaa loogu talagalay? waa la qormisanayaa. arrinta labaad oo Soomaaliya yaala wax weeyaan xeeb aan caadi ahayn oo istaraatiijika la taala min Kismaayo ilaa iyo Zeeland. وحب وين وقاد ويا بدن. أريد صدحات الصومالية تعالى وحيان وضد اسكو ميدا دين لغة جغرافي اسكو اك كلتشر
wax ay ku kala duwan yihiin maba jiraba haba yaraatee xataa caqaa'idda hoose waa isku wada mid arrinta afraad ee soomaaliya meesha ay u taalla waa maxay soomaaliya ka doontahay waa bulsho haddii ay hesho fursad dinamikiya waxay samaynayaan wax madaxaaga aan ku jirin waa dadka maanta ka sameeya baac mushtarka macnaha leh ee ka jira koonfurta africa ee ka jira tanzania ee ka jira uganda ee ka jira zaire waddanka jira congo ee ka jira kenya ee ka jira soomaaliya meel kasti somaliland soomaaliya meel kasta ka jira ee ka jira jabuuti ee noloshii dadka reer jabuuti xitaa bedelay isweydiina dadkan maxay yihiin ee etoobiya tagay ee addis ababa bedelay ee suudaan koonfurta suudaan tagay ee bedelay ee maraykanka minnesota waxay ka sameeyeen dadku ay yaaban yihiin maaragtay toronto edmonton canada adduunkoo dhan meel kastay tagaan waa dadka ilhaan gabadhan idhaahdo baarlamaanka gashay kuwa carab oo imaaraada iyo caayi maaldhowto yani waa xaasidiin weyaan ya gabadhan xijaaban tahay marna ma xijaabno isaga waxaa kala socda marna xijaabanta marna xijaabnayn laakiin ilhaan waxay ku guuleysatay inay noqoto gabadh baarlamaan kongareska gasha soomaaliya iyo ku dhalatay kenya kongareska joogta waxaa ka mid ah wasiirka canada immigrationka oo wasiir weyaan baarlamanka dowladda hoose ee gobolka maaragtay ontario toronto faysal idhahdo uu soo galay in kalaa diyaara gabadh baan kusoo arkay magaalada edmonton oo maaragtay profeseerka jaamicadda ma aha qolooyinkani meelahan meelaystay hay-adahan ku sharaxamar iyo jabuuti maaha waa dad iyaku isnoolaynaya weyaan marka qofkan dinamiiga ah ee wax samayn kara markuu helo duruuf wanaagsan hadduu dalkiisa ku helana anu hore ay noogu sheegay shilanta sano gudaheega africa o dhan bay hogaaminayaan marka waxaas oo dhan ayaa soomaaliya loola dagaalay waa tarkiib waxaabaa la diidan yahay marka arrinta koobaadi waa taa weyaan soomaaliya tarkiibka waa problem tarkiibi ah inaan u fikirin si fudud wuxuu dhahdaa maalik bin nabi raximahullah dadka u fikira si fudud xal ma keenaan dadka u fikira ma dhici karto xal lama heli kara idhahdana xal ma keenaan iyaa keena dadka garta inuu xalku adag yahay laakiin dhici karo xalka soomaaliya uu adag yahay lakin u dhici karaa anaa waxbaa ka sheegi doonaan arrinta saddexaad ee problemka soomaaliya haysta waa maxay waa cadamu lfahmi lima yajibu fahmuhu waxaa la fahmi leeyahay wixii in la fahmo ahaa هذه مشكلة وحي إلا فهمها إيا اللي فهمي لا يهي وحا إلا فهمها ومحي ور صوماليا محاكم مقن ماتا صوماليا محاكم مقن صوماليا دقالة كم مقنو صوماليا حولة كم مقنو صوماليا كم مقنو ضدي صوماليا حكم مقنو صوماليا وحا كم مقن وحا مهمة ومحي والدولة إذن تدخل وحي فهمي لا يهي محاي نغا مقن أرنتا دولة با إنغا مقن وصوماليا كم مقن وحمر ka bixi kari lah oo loo diidan yahay inay xuduudda xamar dhaafto oo ay u tabto dhulkii kaleeto waxa loogu diidan yahayna waa wax cad weeyaan marka soomaaliya problemkooga lambar dhabarka ka wax weeyaan tarkiibka markaan sheegaynay faragelintu waa ka mid faragelintaas inta aan soo dhaafay waxaan ugu laamayaa faragelintu soomaaliya lagu hayo waa faragelin iyana complicated waa mucaqad waa murakkab yaa ku haya waxaa ku haya carab batroolkiina la dagaalamaya soomaaliya yaalla gaaska la dagaalamaya doonaya inay gaaska ogaadeynayaan soomaaliya galbeed yaalla waan ku soo inay xoreystaan oo ay meela marsadaan oo meelaha ay kala baxaan ku tala jira weyaan oo una la qarin oo laga sheekeeyo shirarka caalamiga laga sheekeeyo taasaa la rabaa waxa weeyaan soomaaliya carabta way la dagaalamayaan afrikaanka jaarka la ah oo uganda ugu horeysana way la dagaalamayaan uganda ma rabto in soomaaliya ay ka baxaan inay soomaaliya dib u soo noqoto ma rabto rwanda ma rabto kenya ma rabto ethiopia ma rabaan waxaan la sameynaya waa aflaam weeyaan ma rabaan marka taasina waa mid weeyaan midda saddexaad faragelintu waxa weeyaan waa faragelin caalamiya waxaasuu ka hayst awoodo caalamiya marka maraykanka iyo inta iska soo takhalusayaan iyo shiinaha iyo meeshan nina ninka kale oo ka ilaalinaya waxaa la rabaa inaa la hayo saa lagu hayo sidaa iska haadaan dhan looma dhaqaajinayo dadaalka la siiyey dowlado kale lama siinayo waan sheegi doona waxa loogu diiday marka waa tarkiibkaba haysta okay waxaan u imanay soomaaliya maxaa ka maqan maxaan fahmi laanahay ninka jooga kismaayo ninka jooga maxaan radaa baydhabo
ninka jooga maxaan ku dhahdaa maarata puntland jooga, ninka jooga maxaan ku dhahdaa khaatumo meesha sheegatay, ninka jooga maxaan ku dhahdaa xamar, ninka jooga meel kasti, ka jooga Canada, Maraykanka. marka aad ag fadhiisatay markay maqaaxiyaha fadhiya sheekaysanayaan waxaad dhegeysanaysaa ninku hadduu yahay reer Puntland wuxuu ka sheekeynayaa Puntland, hadduu yahay reer maaragtay Kismaayo wuxuu ka sheekeynaya okay jubbada maxayga balaad waxun baa laga hadlayaa. meelaha baan waan dhegdhegeeyaa yastamicuun ayadda quraanka waxay xadaan maaragtay dhegto maaragtay shahaadada wax xadaantii oo kale ayaan sameeyaa. man dhowtoon aan joogay magaalo maaragtay ku taala Toronto ku taala Canada, meel maqaaxiyaan fadhinay, dad gobol maqaaxiyaha la ayaa deganaa ayaa meesha fadhiyo sheekaysanayeen. waxaan fadhinay muddo saacad iyo badha, shaah baan ku cabaynay iyo keeg yar baan ka cunaynay, waxaan dhegeysanayay qola hadlaysa, qolada gobol bay ka soo jeedaan, meesha wax ka baxsan kabay hadlayn. su-aal baan markaa igu dhalatay, waxaan is weydiinayay qofka Soomaaliga maxaa ka maqan, ma fahamsano intiisa ugu badan. marka waxaan u bixiyay marka qaacidada waxay cadamu lfahm lima yajibu fahmuhu, wixii in la fahmo ahaa iyaan la fahamsanin. Soomaaliya waxa ugu weyn ee ka maqan waa dowlad. wuxuu dhahdaa Jean-Jacques Rousseau akbar ibdaac, Rousseau ibdaac waa curinta ugu weyn ee bini aadan uu keenay waa dowlad. wax dowlad ka fiican uu insaan sameeyey ma jirto. marka dowlad la'aan waa nolol la'aan weeyaan, waxaa loo yaqaan alfaraaq. marka waxaa lagu bedelay dowlad la'aantii dowlad yar yar oo qabaa'ila oo federaal ah oo reera ah oo midba midda kale ay la dagaalamayso, oo sidii dowladihii Andalus ka jiri jiray Spania iyo Portugiis islaamka xukumayay oo ay gaaladu la kala xiriiraan, oo nin walba meeshiisa lagula xidho, oo nin meeshiisa laga soo casuumo, oo carabtu ay la xiriiraan oo ay soo casuumaan iyagoon ilaalinin wixii dul ahaan jiray. marka anigu ma rabo inaan galo federalismigu munoo fiicaya mise numa fiicno, waxaas waxay u baahan tahay dadka Soomaalida u taala. laakiin waxyaalada aan akhrin karayo saqaaf ahaan iyo cilmi ahaan taasaa ka mid ah. arrinta afraad ee Soomaaliya dhibaatada ku haysa waa maxay? waxa weeyaan nukhbad bilaa dowla. arrinta afraad ee Soomaaliya ka arkay waxa weeyaan an-nukhbatu bilaa dowr. nukhbadu waayo, nukhbadu waa labeenta bulshada. nukhbadu wax rool ah Soomaaliya kuma leh, hadday ku leedahayna waxay daba socdaan saddex shay. si fiican la isku daysto nukhbada Soomaaliya. nukhba waxa dhada waa labeenta bulshada. matalan aqoonyahanku waa nukhbo, siyaasigu waa nukhbo, waa elite, waa labeen. caalimku waa nukhbo, waa labeen. fanaanku waa nukhbo, waa labeen. maxaan ku dhahdaa suldaanku amba waxa doon u bixi malaaqu amba ugaasku amba maaragtay boqorku amba islaamku magacda badan bixinay, waxaas oo dhani waxa dhada waa nukhbo. nukhbad cilmiya, nukhbad siyaasiya, nukhbad fikriya, nukhbad diiniya, nukhbad ijtimaaciya oo dhinacii bulshada hoose ah. intaas oo dhan oo nukhbka ah nin walba roolkiisii ma ciyaaree wuxuu daba socdaa saddex shay. maxay tahay aan arkay anigu? kow waxa ugu horeeya oo nin walba daba socdaa waa maslaxad, waa interest. nin walba meel baa xanjo loogu dhajiyey, xanjadaa buu inuu soo goosta doonaya. kayfa asil sidanu gaadha waa mushkilad. qofka eliidka ah waa inuu isdhaafo weeyaan, waa inuu calooshana dhaafo, cawradana dhaafo. haddii aragtid nin naaga badan ku guursanayo, naago magaalkasta naag ku guursanayo, hada laa yufakir. ninkaas wuxuu dhex fadhiyaa bawdooyin buu dhex fadhiyaa. nin bawdo dhex fadhiya caqli ma leh. ninka labaad ee problemka waxa weeyaan ninku hadduu had iyo jeer ka fikiraya maada aakul, maxaan cunaa, hoteelkeen caawa ka soo casheeyaa, malabkeen cunaa, maxaan sameeyaa, hada aydan laa yufakir. qofku waa inuu maskaxdu daasho, waa inuu wax keeno cilmiya, waa inuu dadaalo. marka nukhbadu maslaxad ninka u nool xanju daba socdaa. labo waxay noqdeen nukhbadihii waxay daba joogaan fikraddii markasiga ee qabiilka ahaa. nin dhan oo aqoon-yahana oo jaamacad dhiga intuu soo dhaadhaco reer u fikraya, wuxuu ka yimid min adarajati alaclaa ila reer buu yimid. maaha taasana. arrinta saddexaad ee haysato waa maxay? nukhbadii oo dhan waxay dooneen kursi. ninkan waxaa loo baahan yahay mufakir siyaasi ah, aqoon-yahan siyaasi ah, sida ninka aan sheegay Fukuyama ninkaado ama Samuel Huntington. maxay yihiin raggaasi? waa aqoon-yahano siyaasiyiina, laakiin siyaasadda ma galaan. waa lagu laamaa, waa reference, waa maraajic, waa la akhriyaa waxay qoraan, waa la dhegeystaa waxay dhahdaan, waa laga faa'iidaystaa, laakiin kursi kuma dagaalamaan.
ninka aqoonyahankii waa inuu waxaan ka weynaado weyaan. dad baa jira ducaada oon dacwadda ka wada shaqaynayna muddo fara badan oo siyaasadda iyo cilmiga taxallin jirnay. raggii waxaan wada arkay wada doonaya iminka wada murashaxiinka Soomaaliya. yaa akhi hadafku maaha, hadafku wax weyaan waa inaan wax bedelo. waa sax anaku iyo sanbaa sameeyay Djibouti dagaal siyaasi aan galay, laakiin anigu la ufakir an akun shay fi siyasa, uriid an akun shay ma waraa siyasa. وشيء لا بيكنا طيب أن تكون في السياسة وأن تكون ما وراء السياسة. إن النقطة تقف سياسة كتب بيها أو ضدك أشرحها معنية تصع ديدا دونا أفكار صوب بندقة هنا تلاقي وحن دونا يعني وحن ربعة ولا بشي مركا ضدك نوع عاصة هاي ومدى حلوق قرحين لها يا أنت قالن كير دجان إمامات دينا دجان علمي دينا دجان بيرادين كرسي بندونا. إذا أمد وحرون سا ضدك أنا كرسي بندونا kii maartay waardiyaha iyo kii maartay dhulka harayay iyo gabadhii guryaha masaxaysay iyo kii maartay waxba aqoon iyo kii sheekh ahaa iyo kii wax yaqaanay baarlamaanka isku darayaan isku yimaadeen. ninkaasi wuxuu ku leeyahay ana uriid ana koona shay. idan markaasi ninkii nukhbadii waa bilaa dowr. waxaan u baahannahay nukhbatun taktub, nukhba wax qorta, nukhbatun tuxallil, nukhba anliis keenta, labeen etid samaysa anliis keenta, نخبة تخطط نخبة مارتي بلانيفيكيشن سميسا وسرقوي سنلاشا. وحنبها هاي فنان يقول الحق ربط الشيغة ما هجعايل كهيسا إيا مدحضة بينت الشيغة أوهيسا ومارتي إياك أوسيدة كباها أوسيدة ومارت ما نتي للدورتي بدحوينا فرماجو وحنكولي فنانيتا أمانينا فرماجو لأنه أمانته واحد شيء لما بدحوينه أنا قانو محمد سياد بر ويدشي أمانته لا ونحرسته وحي كل شيء وحلولي أبيه قرشدا أبو المعرفة وحو اسمه دي أبيه قرشدا نبا يورمي ما عنده وتوحي غيري نينا المادير هاي باكل وسياد هرتا ما حدو غاشا مركا أبا لو نادو ما حدو غفر حدا أبا متيد تذكر ما أبا أوتاي مدحوينات هاي وعدادو هداد أبا إي اعتراف سنين تذكر وده إي اعتراف سن تطبع إي جعل أبا يقال إي داولي أوكي أبيه قرشدا باكليري قرآن كم مركز كل نقطة أباها قرشد وإلهي لأن قرشده هو الضم وإحنا اللي سيبين علم الإنسان ما لم يعلم. يا أباك مركز قرشده إلهي مركز وان قادنا أبيه قرشده قدرني وحنا ركرنا أبيه أقونتا أساسي إسكولا درسي لكن يحب الدسين بها هرجيس يدو هرجيس دي جيرتو كتاي يوضا كده سيبرا كتاي يدو بوساسا يو كتاي يحب كما قبل حمرون با wax laga qabto laga dhisay wax ma qaban. dawladnimo way jirtay laakiin wax ma qaban. ciidan weyn uu sameeyay laakiin wax ma qaban. jidadkii ba jajabana marka ana xishoon weyn anaku waan dhaafnay ba aabii garashada Djibouti marka doonay inaan Ismaaciil Marxmaan waxaan oranay waxa tahay adigu aabii garashada ma tidee waxa tahay aabaha runta aabaheedu runta abu sidq runtu ma kala adeeg ka imata waxaan kugu bedilana maba haysanaba ما بدلي كرنا مايا اسكدا ما انت برينا ما جري هذا وفنان واحد صار ما انت اسكدا في مركب قصيا مركبا كوتن كونو فرس $300 بشي سيا مركا waxaan ku iri dadkii xafladan kala qayb galay farmaajo amaanta ka day laakiin lama dhageysan wala amaana ilaa imika هذه مشكله qofka bini aadanka amaanta weydishaa gaar ahaan markuu madaxweynaha rub muuday waxaan qofka waa la tawjiiha wuxuu sax ku sheegay waxa sax baa tahay laakiin maantana qalad baa tahay marka waxaan uga jeedaa waxaan fanaankiina bila door buu noqday. okay sheekhina doorkiisu wuxuu soo dhaafi waayay inuu ka sheekeeyo xaydka iyo nifaaska iyo soonka iyo zakada iyo salaada iyo quraanka iyo jacaylka iyo halkaaba uu dhaafi kari waayay. wadaadkiina aayadihii ilaa xukunka suuratu nisaa iyo suuratu maa'ida iyo suuratu baqara iska dhaafay kontraaydi aqdigi aqoonyahankiina reerkiisii buu soo dhaafi waayay. reerkiiba xaflad ugu sameynaya London, reerkiiba xaflad ugu sameynaya Toronto, reerkiiba xaflad ugu sameynaya subhanallah alazim. markaas taasi marka maxay noqotay nukhbadiina waxay noqotay bilaa dowr. Soomaaliya problemka haysta waa tan weeyaan walaalayaal. Yurub horumar ma gaadhin ilaa ay nukhbadu xurowday. qofki elite waa inuu xuroobo. marka arinta aan aad maanta uga hadlayo waxyaan Soomaaliya waxa haysta afarta mushkiladood. waxay u baahan yihiin xal. maxaa xala saddex arrimood baa soo bandhigaya oo aan arkay waa xal halkan uma soo bandhigayo in la dhageysto lagu farxo. waan ogahay cajaladaha aan qabanay inay dhageystaan madaxdu cajaladii maanta Djibouti ka qabtay intaas oo telefoon baa yimid
oo qaar ay ka yimaadeen sida hore noogu sheegay xaaska madaxweynaha oo la yidhi maaragtay ma iminkana way siiba dheeraato meel kasii fog bay telefoonadu ka yimaadeen ilaa iyo telefoonku u socdaan ilaa maanta waxaa laga hadlayaa arrintaad ka hadashay kaashka tuuday hebel ayaa kaashka tuutay marka alxamdulilah in la dhegeysto shaki ma leh laakiin in xal lagala soo baxaan rabaa aniga problemku maaha qof isma hayno anigu qaar ba dhammaan isma hayno qof anigu qof col lama yihin laakiin waxaan la colahay mawduuc dulmi la dhahdo waxaan la colahay mawduuc idhahdo wadan la boobayo waxaan colahay mawduuc idhahdo dhul la burburinayo waxaan xabsi u galay waxaan diiday sida loo shaqaynayo sida loo socdo waxaan qaxooti ugu ahay dibadda waxa weeyaan waan karayaa inaan saan doono u noolaado waxbaan diidanahay maaha bini aadan waxaan diidanahay hab markaa saaba in la garto solutionka markaa soo bandhigayo hala dhegeysto madaxda waan la hadlayaa shicibka waan la hadlayaa culimada waan la hadlayaa marka waxaan Soomaaliya saddex hal bay u baahan tahay kow Soomaaliya waxay u baahan tahay in la bedelo fikirka markaziga dastuurka maaragtay weli hadda aan dhammaan dastuurka la wado dhammaan dastuur dhammaan waa la qorayaa dastuurka Soomaaliya maaha xal dastuurka Soomaaliya xal maaha maxkamadda dastuurka Soomaaliya xal maaha madaxweyne inaan sameeyno xal maaha baarlamaan inaan sameeyno xal maaha waxaasi waa xalal hoose weeyaan xalka asaasiga waxa weeyaan inaan ka guurno fikrad oo nu guurno fikrad kow maxaan ka guurnaa fikradda qabiilka ka guurno ما أها فكرة قبيل كان أصنع سيدي محمد سعد برا هندوقنا معها الله يرحمه وهالك وصلنا كلا شقينا معها وحاربها محمد سعد برا وآسي ودوقي لكن وممكن تمر الدب وقاته اسماعيل عمر قال وانا خبط بخلني قروح بدن ودي أنا مرة بوطن قبيل لقى عشته لكن ما كان الرئيس يكتبنا قبيل ما هو الرير سوكايو وفاميلي جيسي دولتك وبحصنه فاميلي جيسي وأباه أدرك وحي يقعلك ما تعرفونه مركا dadka walaalka maaha beento hadalka maaha ficilka weeyaan maxaan u baahankaa ha ka guurno fikradda markaziga reernimada say u dhidashahay baan ka guurno ha nu guurno fikradda markaziga ah fikratu dawla pensée d'état inaan qaadano fikratu dawla war waa dawlad baa loo baahan yahay wadaadku dawlad buu baahan yahay ilmuhu dawlad buu baahan yahay inantu dawlad bay u baahan tahay madaxweynuhu dawlad buu baahan yahay ciyaalkaagu dawlad buu baahan yihiin Canada marka dadku dhex joogaan inay dawlad haystaan way garanayaan maaha dawlad kartoona maaha dawlad waraaqada maaha dawlad loo cabsoonaya dunta maaha dawladda xataa haddii ay dhacdo xukuumaddu powerku waxay iska jiraysaa weligeed dalka Belgium 9 bilood ra'iisul wasaare la sameyn karo waa dawlad laakiin waddanka dawlad way jirtaa dawladdu maaha dadka xukuma dawladdu wax ka baxsan annagu haddaan dawladdiinahay maaha dawladdu adigana maaha anigana maaha waa wax fikrada oon meel intaas la dhigno aan dhisno oon hagaajino oon oran horta taa dhisano federalismiga way ka horeysaa qabyaalada way ka horeysaa xamaraasinimada puntlandnimada kismaayo maaragtay gobolada waxaana sameyn way ka horeysaa dawladdu waxa weeyaan waa wax kor inta loo dhisto caqdi lagu dhiso contract heshiis baa lagu dhistaa waxaana ku heshiiyo heshiiska dhista dadka loo yaqaano Soomaalidana ayaa horjooga elite-ka ay sheegay labeentana xaqii ka imanaysaa shantii qole ka imanaysaa waa inay shantan qole ka baxaan waxaan hooso kor u kacaan mid lixaad baan inagu darayaa oo labeenta ku jirta waa bay'u musharka waa labeen muhiim ah waliba Soomaalida waa labeen muhiim ah waa labeen naajaxday sida loo sameeyo lacag laakiin ku najixi weyday sida loo sameeyo horumar meel gaajoonaysa hadda horumar ka sameeysid adbood gaajoonaysa meel caafimaadku duusan yahay adiga dhamay kalido ka xunaan hindiga ku ordaysaa waxba sabi waxaad qabatay ma jirto iskuul ciyaalkaagu dibadda wada geynaysaa baasaboorkiina u qaadaysaa Tanzania Djibouti lacag baa kaga baxaysa baasaboor iibinaysaa markaa baad ciyaalkaaga dibadda u diraysaa Turkiga iyo Shiinaha iyo u diraysaa laakiin Soomaaliya gudaheeda laga sameyn karaa jaamacado macna leh waliba maanta raggan maaragtay lacagta sameeyay Soomaaliya sameyn karaya marka maxaan u baahanahay al-intiqaal min fikra ila fikra ha ka guurno fikrad arinta labaad ee Soomaaliya u baahan tahay maxay Soomaaliya waxay u baahan tahay tagyiir inuu isbedel dhaco dhinaceedu isbedelkaasi ka dhacaya isbedelkaasi Soomaaliya waa inuu ka dhaco dhinaca cilaaqaadka xiriirka waa inaan xadidno Soomaaliya cadowgeedu waayo Soomaaliya waa cadow dad marka wax la soo baday cadowga Soomaaliya waa Itoobiya dad baa la soo baday cadowga Soomaaliya waa Carabta waa Imaaraadka iyo Sacuudiga dad baa la soo baday Soomaaliya cadowgeedu waa Uganda Soomaaliya cadowgeedu waa Yurub iyo Mareykan cadowga Soomaaliya inta midna maaha
cadowga Soomaaliya waxaa cadow ah qofka Soomaaliga ah qofka Soomaaliga ah ee rabin inay Soomaaliya wax noqoto waa cadow Soomaaliya ku yahay marka maxaan rabnaa inaan anaku iska saarno cuqdada cuqdaduna Soomaaliya waa laba nooc waa nooc wanaaga laakiin positive oo noqotay negative oo maxay isla weeridan anaku haddaan nahay Soomaali anaku haddaan nahay reer hebel anaku haddaan nahay maxay wadada been baa isku sheegnay waxaan nahay maaska dhaadhicinay waxbana noqon weyn iyo cuqdada labaad ee kale taa adduunkan dad kala haystay maxaan qaban karnaa labada aan ka baxno waa inaan aamino inaan cadowgeenu uu yahay jaahilnimada jaahil baan nahay maxaan jaahil ka nahay waxa aan nahay baan jaahil ka nahay istuwarkeena taariikhdeena jaahil ka nahay marka taasina waa inaan ka baxno oo maxaan u baxnaa macrifo aan isgaranno ma naxno anaku maxaan nahay iyo inaga soo horjeeda muxuu inooga soo horjeedaa maxaan yeeli karnaa si aan waxaan uga hortagno xataa jaamicadahan boqolka waa boqol jaamicadood wax laga tiriyay marka Soomaaliya wax ka jira boqolkan jaamicadood mashaakilka Soomaalida ma baaraan waxaan jirin bay baaraan iminka Canada markaan joogo jaamicaadka markaan akhriyo waxyaalaha lagu baaro waxaa ka mid ah problemyada Canada ka dhaca ma aha gobol problemyada provinsiyada ka dhaca gobolada yar hoos ka dhaca sida matalan Quebec gaar ahaan magaalada degan ee Gatineau mushkilada dikadaha ama jidadka la maray maxaa haysta buu nin ku sameeyaa master xalna uu keenaya dawladdu ka bay qaadanaysaa way eegaysaa marka adiga waxa laga rabaa istaastigu qof taariikhda baaraya wadankani dadka ku dhashay say u dhashaan goorma dhashaan halkay ku dhashaan maxay u dhashaan dadada waxaas baaraya dadka baaras intay biirayaan 20 sano soo socota inta maxaa ku biiraya magaalada degan ee Gatineau oo magaalo yar diraasa lagu sameeyay diraasadii waxa ka dhashay in biyaha 20 sano soo socda la hagaajiyo koorantadii wixii dhan istaraatiiji la sameeyo oo la dhigay wala dhameeyay isbuucii dhow baa laga farbaxay waxaas oo dhan diraasada yaa keenay ardayda jaamacadaha keenay marka waxa loo baahan yahay inaad taas sameeyno arrinta saddexaad oo xalka ah wax weeyaan xalka Soomaaliya waxay u baahan tahay in shir la qabto wata arrinta aan u arkay markaa solution shirkaas in lagu qabto gudaha Soomaaliya Muqdisho loo yeero dhammaan dadka Soomaalida ah fadhigaas uu noqdo fadhi run la isku sheego oo laga hadlo arrimaha aan ka hadlaynay ee xaqiiqiga ah kadibna la keeno solution amali ah practical ah oo laga dhaqaaqo halkan ilaa 5 sano 5 sano gudaheega waa inay ku dhamaato doorasho waa in lagu qaban qaamin karo waxaas ma sax 4 sano ma sax tii Shariifka loo dhiibay iyo tii Xasan loo dhiibay iyo tii loo dhiibay farmaajo way socon weyday waa 5 iyo 4 waa 4 saddexaysan waa 12 sanadood 2 sano waa 10 sano 2 sano waa farmaajo ma sameyn karo inuu doorasho wadankoodna laga qaban qaabiyo Muqdishona doorasho laga qaban qaamin karin waxay u baahan tahay doorasho waxaas ma doorasho waxa ka horeeya in la sameeyo is-afgarad buuxa waxa ka horeeya isku tanaasul waxa ka horeeya inaan garanno inay dawladdu muhiim tahay waxa ka horeeya inay eliitka iyo nuqbadu ay wada shaqeeyaan iyo dawladdu taasna waxa ka horeeya inuu qof kasta roolkiisa ciyaaro kullu dhalika yahtaaj ila hada ya ikhwani fillah taasar u baahnay marka arintaas aan ku dheeraaday waa arintii Soomaaliya weeyaan intaasaan ka baxaya waxaan jecelahay inaan imaado Ethiopia Djibouti laakiin Djibouti dib baan dhayaa maxaa yeelay waa iyadu hadal dheer u baahan tahay oo u baahan ilaa iyo maartay 40 minute laakiin Ethiopia waxaan ka hadlayaa saddex arrimood oo cajiib ah Ethiopia waxaan ka hadlayaa wax weeyaan ninkan la yiraahdo Abiy Ahmed waana aqli badan laakiin hawsha sidoo u wado lama shaqeynaysa aqligiisa badan Abiy Ahmed waa aqli badan laakiin shaqadiisu waxaan moodaa shaqo aan waafaqsanayn cilmiga maxaa yeelay inuu isbedel sameeyo geeska Afrika oo uu hogaamiyo Ethiopia geeska Afrika oo dhan buu doonayaa laakiin wuxuu ka bilaabayaa Eritrea Soomaaliya Eritrea Sudan Djibouti gudihiina problemyo badan baa ka jira Ethiopia inay infijarta laga cabsoonayaa inuu qarax ka dhaco shacbiga qaraxa shacbiga saddex shay baa keenaya waa koow waxa keenaya Ethiopia waxa ka dhacay tawrad revolution waxa waday Oromo waa la kiciyay way kacday Oromo laakiin lama fadhiisin Oromo ay kacba leeyahay fadhiiso in la qaadana Oromo in la fadhiisid kii kiciyay waa inuu fadhiisiyo iyaa kiciyahay waxa kiciyay Abiy oo hoosta ka shaqeynayay Jawhar saaxiibkay iyo rakala iyaa kiciyay
وفكرة في عباد أنا ولا نجري التورطاس لكن محل العمل ما قبل الثورة هي العمل ما بعد الثورة وكل دوين شقة لقبت الريفولوشن كورت واحد وقع تطوال كيا لكن ما كده عن محل اسمها دولة نمد الوسويشة سيدي اسمها آية الله الخميني آية الله الخميني شعب جيسا وكعي ولا كعي لكن مركو دولة قبتي وفريسية عدو بوسمي ميل بوجيدية لكن استراتيجيكال بارغة مركا وحال ربع هنا تال فهم ورمضان الله أريد الله بعد مهم كوحنا وصومالي ده soomaalidu ma kicin barbaarta yaa kacda ahayd yar oo waxaa samaysay wax yaroo fiican laakiin soomaalidu ma kicin soomaalida problemka soomaaliya yaalloon baa haystaa fikratul qabiila haysata nin wanaagsan oo sida aabi axmeda u yimid oo mustafa la dhahdo laakiin ninkaa ma fahmayaan soomaalidu oo ka horeeya iyaguna ka dambeeya okay waxaa soo galay jabhadihii halganka soo galay taariikhiga sida waana lafta oo si fiican in loo soo dhaweeyo mudan lianno halgan toddobaatan sano socda iyo soo dhameeyeen marka maxaa loo baahan yahay soomaalidu waa inay saddex qolo isfahantay imika kow ragga gudaha taqyiirka ka sameeyey oo ay ka mid yihiin barbaarta reer Dardhabe iyo Mustafa iyo raggii maaragtay waa wanaagsanaa ee halganka soo galay gobolada dhan ka soo galay waa kow labo jabhadda waa inay lafta iyo raggii hubka qaaday ee u qaaday inay isbedel sameeyaan qolada saddexaad waayo waa odayaasha iyo culimada saddexdaa qolo waa inay fadhiistaan oo ay ka tashadaan ayaha gobolka Soomaalida ayna laba su'aal isweydiiyaan cilaaqada iyaga dhexdooda xiriirka iyaga iyo Oromo iyo Anfarba ku dar Anfar iyo Oromo igu dar waa inay ka hadlaan masiirkooda marka ay qararaan si cilmiya jaamacadda Jigjiga waa in loo fadhiisto si aqoon looga doodo maaha si iska hadal uuna maaha guriga waxaan fadhinay ugaas hebel iyo guriga boqor hebel iyo guriga boqor hebel dowladda kama sheekeeyo dowladdu waxa laga sheekeeyaa meel la dhaxdo jaamacad faculty macad research sameeya culimo loo dhiba aqoonyahan baa loo dhiba waxay keenana waa la qaataa wixii cilmiga ka mari karay waa la qaataa marka waxa loo baahan yahay aniga oo maaragtay reer hebel ma quraca anigoo ah nin Soomaaliyeed oo gobolka u dhashay iyo fikradan keenay waxaana ka soo keenay arrimaha saddexda qolna waa inay isfahmaan wayaan Itoobiya arinta ugu dambeysay Itoobiya ka hadlay waxaan Itoobiya waa diin baa la isku haystaa Islaam iyo Kristaan runaha laga baxsanayo ma caasimadan maaragtay magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya kamid ah magaceedana sheega ma rabo sida Mako kale u arkaan waxa loo diiday in masjid laga dhiso masaajid laga dhiso leeyahay meel agteeda ah maxaa la dhahdaa wajaale magaalada wajaale dhahdo iyo kaniisad laga dhisay abdi ila waqtigiisa la bixiyay kaniisada Jigjiga kaniis laga dhisay iyo shaca laga dhisay magaalo wal Soomaali degan tahay oo qof Kristaan oo Soomaali Kristaan oo jiraba yaa laga dhisay okay anaku kama horjeedno in laga dhiso dad Kristaan jooga oo ku tukanaya dad Kristaan ku tukanaya laakiin magaalo dad muslimiin ay degan yihiin oo gobolka Amxaarka ama gobolka wal meesha ku taala maxaa miskiidka loogu diiday looga dhisay وسؤال وين marka waxaan rabnaa inay dadka muslimiintu ay fahmaan dagaalku maaha dagaal diiniya inaan diini ka dhigna maaha muslim iyo gaal baa isdiray maaha laakiin dadka muslimiintu waa inay mandowta u ziyaartay Ahmed Abi majliska sare ee arrimaha islaamka aad baan u soo dhaweynaa fikrad fiican been ahayd fikradana oo u sheegeen waan ogahayna u sheegeen laakiin waxaan jecelahay inaan la dhaafo marxaladda al-istiraacaat ad-diiniya dadku inay diin isku haystaan fikr diiniya islaam qaar kale waxa jira salafiya suufiya isku haysta Itoobiya dhexdeeda waxa ka sheekeynaya waxa waa inaan dhaafno weeyaan marka Itoobiyana si ay isbedel infijaar uga dhicin qarax uga dhicin waa in Oromada la qaboojiyo waa in Soomaalidana la kiciyo Soomaalidu waxa baad la kiciyo maskaxdu way hurdaa waa inay kacaan Soomaalidu saddex cadow bay leedahay Itoobiya dhexdeeda cadowga koobaad waa Jaad waa inaan fahanno taas weeyaan cadowga koobaad ee Soomaalidu leedahay waa Jaad Itoobiya dadka Soomaalida jaadka cunug yar wal walaayay badbuuda marka jaadka waa inaan la dagaalno dagaal cilmi laakiin cadowga labaad ee Itoobiya Soomaalidu ay leedahay waa maxay waa lacagta weeyaan lacagta dawladda qofku hadduu kol helo wad fajacaysa soo galayo cadow weeyaan cadowga Soomaaligu dawladda iyo lacagteedaba cadow u yahay taana waa inaan fahanno qofka Soomaaliga ah lacagtu dawladda inuu hadduu fajacaysa waa cadow u tahay arrinta saddexaad qofka Soomaaliga cadowgiisa waxay Itoobiya degan وجاهل لماذا ويا ذاك وين وحلا بروين
ma aha iskuul in la galo iskuul waa la galaa ka ugu doctoraha haysta ugu qabiilsan oo ugu wareersan dadka laakiin waxaan rabnaa inaan baranno dowlad see loo dhaqaa dowladnimadu ma ahin qofku isagoona u dhalan gobolkaaga ayuu noqon karaa gobolkaaga madax ka noqon karaa u dhalasho maaha iminka faysal ninka dhada nin sheegay waa nagu celinaya faysal waa nin dhalinyaro ah magaalada Toronto iyo dowladda hoose baarlamaanka ku jira uma dhalin de Toronto ma ahin Canadian ma caddo waa muslim waa Soomaali waa Afrikaan laakiin maanta baarlamaanka ku jira dadka wuxuu matalaa wali waxa loo dhibay xisbigiisa ma baarlamaanka waxa looga dhibay dhalinyarada gobolka Ontario dhab u fikra baarlamaanka soo uu matalaa bal ninka ka waran waa Soomaali ku yimid xaga ma degan laakiin adiga maskaxdaada waxa ku jira waan akhi fillah inaad golfka aad u dhiibanaysid gobolkaaga province-kaaga magaalada inuu adigu ku noqdo reerkayga dhiigayga hoose waa inuu noqdo waa inuu ila qurac maaha ila laan waa inuu noqdo waa inaan waliba magaciisu aniga ay noqdo halkii horumar ka gaari doontaa markaas ma gaari doontis marka waxaan u jeedaa waxa intaas weeyaan Djibouti aan isku soo noqon doonaa waa mowduuc aad u kharaad waqti dhow baan isku soo noqon doonaa waa mahadsantihiin salaadii maqrib baa noo gaadhay annaka marka aan deganahay magaalada Ottawa iyo Gatineau caasimadda dalka Canada salaadii maqrib baa noo soo gashay waa mahadsantihiin meel kastoo joogtaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka waxaan ilaahay insha Allah taala sidii caadigeena ahayd waxa la akhriyo akhristu waa nolol waxa la dhageysto waxna la barto dhageysiga cilmiga iyo akhristuna waa nolol weeyaan inaan iska noolaano liajli noolaasho ma wanaagsan waa inaan u noolaano ujeedaduna waa in noqoto inaan ummadeena wax u qabanno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.